halkan anagu joogna ayaa shir ku jirna ayaa dab ka dhashay dabkaas oo uu sababay koronto meesha falxalka oo maqaayada gudaha cuntada loo kariyo ka dhashay shaqaalaha ayaan u wargeliyay in maqaayadu ay dab ka dhashay marka uu nimidna biidnillaahi kariim shacabka ayaan ugu baaqnay inay waxna laga qabtaan shaqadaas shacabka reer Galxayood baa shaqo weyn ka qabtay ayadoo shaqadaas sii wada waxa dib naga soo gaaray dawladda hoose gaar ahaan gaariga oo dibdamiska waxaan macalina dhammaan shacabka reer Galxayood oo shaqadaas qayb weyn ka qaatay waxaan leeyahay dabka maadaama shaqo weyn laga qabtay oo dad badan la helay oo biyaha dabka damiya waxa noo fududaatay hal howl kaliya oo qaybta cuntada lagu kariyo in yaani wax gaareen oo baqaarada u dhawaana dabkii laga badbaadiyay waxaan kale u mahadcelinaa gaariga dibdamiska oo dib naga soo gaaray shaqadaas nala qabtay markii dambana soo afjaray halka dabkii ka dhashay waxa u soo gurmaday dhammaan dadkii ganacsatada iyo deegaanka dadka shacab weynaha oo dhan ayaa soo gurmaday dawladda hoose waxaan uga mahadcelinaynaa dadaalka ay sameysay iyo dibdamiskii dawladda hoose oo ka shaqo bilaabay hadiiba yimid ayadoo dadkii shanta kula jiraan ayuu soo gaaray marka si fiican baa hawsha u dhamaatay dabkii ilaahay khasaaro weyn maaragta naguma gaarsiin oo waxa weeyaan waxa dhacday hadda waa la damiyay waxa kale oo soo gaaray hadda dibdamiskii dawladda hoose ee Puntland ayagana way hadda uu soo gaaray marka insha Allah shacab weynaha hadaan nahay waa u mahadcelinaynaa maamulka dawladda hoose labada dhinacba insha Allah taala si habsamile ayay uga shaqeeyeen dabkiina hadda waa la damiyay waan lagu guuleystay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale waxa lagu guuleystay in dabkaas la baqtiyo asagoo sii faafi lahaa oo meherada ganacsi oo kale gaaray balse alxamdulillah rabbil caalamiin shacabka degmada Gaalkacyo iyo dawladda hoose oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay baqtiyaan muddo ka yar 15 daqiiqo bay ku soo gaaray dibdamiska degmada Gaalkacyo sidoo kale waxa gurmad noogu yimid dibdamiska yimid walaalaheena dariska reer Puntland oo asaguna ka qayb qaatay sidoo kale daminta baqtiinta dabkaas alxamdulillah rabbil caalamiin waa lagu guuleystay dabkiina waa baqtiyay shacabka dhammaan shacabka magaalada Gaalkacyo waxaan ku wargelinayaa in la iska kaashado dhibaatadaas oo kale marka ay timaado oo loo wada gurmado oo laga wada hortago